dabcan dhibaatooyin kale ee dhalinyarada haysta markaan eegno waxaa ka mid ah tahriib oo aad moodo in sanadii ugu dambeeyay aad uu usoo batay. waxaad ka hadashaa inta badan baraha bulshada ahaata ambaba xalfadaha in dhalinyarada tahriibka uusan u wanaagsaneyn iyo waxyaabaha keeni kara tahriibkaas in dhalinyarada ay aadaan oo aan ogsoonayn in Soomaaliya ay dhibaato fara badan ka jirto. ma jirtaa marka wada is leedahay dhalinyarada tahriibku baabi'aysa waa lagu wacyigelin karaa? horta marka aad rabto inaad wax daaweyso waxaa fiican intaadan daaweynta aadan u guda gelin inaad horta ogaato cudurka jiro. markaa cudurka jiro ogaatay yaa daaweyn kartaa. cudurka jiro dadka tahriibayo ma aha. cudurka jiro waa dadka wax tahriibinayo. dadkan tahriibi rabo hadday tahriibi karaan muqallas umaysan baahdeen. dadkan waddo ma yaqaanaan, kalsooni iyo dhiiranaan ay ku dhaqaaqaanna ma qabaan. waxaan dhan fududeynayo muqallaska waa ninkan dadka wadaya waay oo badaha jeexinayo oo diyaaradaha tigidhka feega u jaraayo oo balaayada isku dubaridayo. annaga Soomaali haddaan nahayna wax kasta waa ognahay laakiin waa iska dhibtirnaa. qof walba intaasoo saaxiib buu leeyahay uu og yahay inay muqallasiin yihiin oo uu og yahay inay ka dambeeyaan halaaga dhalinyarta Soomaalida haysato. laakiin qof rab inuu ka hadlo male sababta waxaa ku leeyahay waa in adeerkay meeshaas bariiska ka dhacsada waa abtigay meeshaas bariiska ka dhacsada. qof walba inuu mas'uul noqdo. internetka waxaa ku arkaysaa Facebook ama meelaha kale oo bulshada ku kulmaan baraha internetka qof caadi oo muqallas oo soo post gareenayba dadkii uu waday sawir intuu ka qaado oo ku leeyahay waxaan joognaa meel hebel waxaan joognaa meel hebel waxaan ka gudbeynaa xadud hebel waxaan ka gudbeynaa wabi hebel noo soo duceeya waxaan mareynaa forest hebel yani hawdka noocaas la yiraahdaa mareynaa. dadka loo socdo wadamada loo socdo waxaan kulliga ka warramaa. laakiin haddii ninka cadowgaada ama ninka horumarkaada iyo dadnimadaada iyo isku tash yani inaad qof isku tashtay oo dantiisa gartay inaad noqoto qofka aan rabin ma kula tahay hadduu arko inaad webi ku dhacayso ama hoogaan ku dhacayso inuu kaa celinayo? halkaasi kaa fiirsanaya shaashaday kaala socdaa waxa dhaqdhaqaaqooda kulli waa lala socdaa laakiin waa loo aamus because haddii shaqadii adi a qaban lahayd aan ku qabto ma waxa ii dhintaa jiro. ninkii ka shaqeynaya marka dhalinyarta Soomaalida inay shaqo la'aan noqdaan inay dhintaan inay dagaalo wadanka burburiyaan ninkii ka shaqeynaya waxaas hadduu arko nin ayaga kamid ah dadkii uu dhibaateyn rabay qof ayaga kamid ahoo wejigooda lahoo magacooda lahoo luqadooda ku hadlaayo oo isku diin yihiin ayagana ay ogol yihiin oo halaagayo oo badihii ku daadinayo oo cadow gacanta u gelinayo hadduu arko ninkaas relax kursigiisu qaadanaya koobkiisa qaxwada cabaya maca salaam shaqadiisa waa loo qabtay ilaan shaqadaas budget uu ku bixin lahaa asaga budgetkiisa u badbaaday energy-ga u badbaaday waqtiga u badbaaday. marka dhalinyarta tahriibayso inta ayaga aanan isha lagu fiiqin isha aan lagu qabanin kuwa tahriibinayo in la qabto. kuwa tahriibinayo isaan ogsoonahay badanaaba ma jirto base loogu tago oo markaas la dhihi karo hebel xaruntaas ayuu joogaa oo aan dabcan raadinayna dadka baxaya laakiin dhalinyarada hebel la dhihi karaa oo xaafad hebel ayay joogaan ama meel hebel ayay joogaan. marka dhalinyarada baxaysa ayaga qaab ma jirta oo loogu sheegi karo ugu yaraan laga wacyigeliyo in hawshan hawl cadow ku faliyay leeyahay tahay hawl la doonayo in dhalinyarada lagu gumaado oo nafsadooda lagu dhaafsiyo ay tahay in laga dhaadhacsiin karo isleedahay? dhalinyarada iyo bulshada dhan iyo ummadda caalamka ku nool oo dhan intooda badan waxay jecel yihiin amar diida inay sameeyaan. yani qofka maalinta aad amar siiso ama aad wax kula taliso inuu waxaas qaato uu ka leexdo wixii ka leexa aad lahayd iyo inuu ku sii socdo wuxuu door bidaa inuu ku sii socdo. haddii wax laga wacyigelinayo aada loo wacyigeliyay heese waa loo qaaday khudbado waa loo jeediyey waa loo duceeyey waalidkoodii qur-aan ay u akhriyeen qur-aan la saaray
way arkeen waxa meesha ka jiro iyo dhibaatada ka jirto marka wacyigelin le lama wadi karo wacyigelin dadkan waxaa loo sheego no waxaas lama wadi karo waa in salka laga jaro waay waa inaan bilowno olole lagu magacaabayo ama lagu soo xulaayo ama lagu aqoonsanayo dadka tahriibiyo dadkaas haddii shaqo laga qabto oo la xareeyo oo la xiro oo la maxkamadeeyo human trafficking waa offense weyn wa yani waa yani faldambiyad aad u weyn waay qof bini aadan inaad ka ganacsato naftiisa waa wax yani ICC la geyn karaa international criminal court waa in dadkaas la qabto soomaalida marka hadday hadda gabar walbo oo walaalkeed uu muqallas yahay hooyo walbo oo wiilkeed uu muqallas yahay oo dadka uu tahriibiyo adeer walbo oo wiilku adeer ku yahay muqallas aabo walbo qof walbo qofku ku xiriiro hadduu uu volunteer ahaan uu noo soo diiwaan anaga noo soo wargeliyo uu yiraahdo Cabdilcaziz maadaama ururka bulshada ka shaqeysid ninkan niyo dadku u laaya umada ka qabo hadduu uu qof waalid isa soo bixiyo si volunteer uu anaga noogu soo sheegay anaga dawladda u gudbinayna waxaan leenahay ninkan human trafficking ku sameeyaa dadkii yo ka ganacsadaa dadku tahriibiya waxaasoo dhalinyaro badda ku dhamaana isagaa wado waxaa laga qabto safaaradihi ha joogo hay-adihii xuquuqul insaanka ha joogo nabaa lagu shidaa qofka yani tooshaa lagu shidaaya waa la daba dhiganaya ayagoo waddanka ka carara arkaysaa meel kale ay u gudbaan meesha kale u gudbaanna wiilal anagoo kale aha joogo oo dabada ka galaya haddana waa laga cayrinaa ilaa marka dambe ama ay dadkooda kamid noqdaan oo sida risqiga xalaalka dadka ay doontaan ama ay jeelal